dadkeenna waynu la talinaynaaye in maanta laga baayac mushtareeyo rag iyo dumarba isqaawin TikTok lala soo fadhiisanayo habluhu ay isqaawiyaan oo wiilashu ay isqaawiyaan oo meeshii la qarin jiray bannaanka la soo dhigo inuu qofku isqaawinta ka macaasho oo lacag ku qaato isiraado meelaha lacagta laga bixiyo isqaawinta kaga hel iyo dad badan ku hel waxay noqon kartaa jirkiisii oo qofku iibsanayo marka siday ruuxa dumarka ah xaraan uga tahay inay xubinkeeda taranka iibsato oo jirkeeda iibsato tanna tiun bay la mid tahay waa ka xaraam marka inay cawradeedii qofku soo bandhigto oo sidaa ay lacag ku hesho ama wiilkiiba uu ku helo waa xaraan xagga sharcigeena walaalayaal waana nasiib darro weyn marka cawrada qarinteeda halkaas islaamku ka taagan yahay wax aad ikhtiyaar u leedahay maaha